gabadheeni waa la guursaday ikraan tahliil waa la guursaday waa marwo nin muhaajir ah ayaa qabo ninka ikraan tahliil qabo magiis waxa la yiraahdaa tambiir bal tambiir wuxuu u dhashay wadanka Bangladesh mid ka mid ah shakhsiyaadka ka tirsan qoyska ikraan tahliil faarax sidoo kale xogay sirdoon ka helaya taliyii hore ee hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa xog lama filaan ah saacadaha aan haatan idan la hadlayo baraha internetka la waraagay xogtaasina waxay ka yaabisay qof kasta oo Soomaaliyeed waana mid sheegaysa in ikraan tahliil ay ku nooshahay meel ka mid ah Soomaaliya gaar ahaan aroos ay ku tahay ayna leedahay uur 3 bilooda idinkagama hordhacayo xogtan oo noqotay mid lama filaan ah ayaan halkan idinkula wadaagayaa saaxiibayaal dhammaantiin muuqaalkan like saara si bulshooyinka Soomaaliyeed uu gaaro YouTube kanana subscribe saarta gambaleelkana furto kuma hasanadiin aynu ku bilownaa saaxiibayaal saacadaha idan la hadlayo waxa uu muuqaalkan qabsaday baraha internetka waana mid ka sheegaya aynu ku bilownaa saaxiibayaal saacadaha idan la hadlayo waxa haatan baraha internetka qabsaday muuqaal la yaab leh kaasi oo sheegaya in ikraan tahliil ay nooshahay sidoo kale ay ku nooshay mid ka mid ah gobolada Soomaaliya gaar ahaan goobaha ay xukumaan al-shabaab waxaana ikraan tahliil aroosay sidoo kale uur 3 bilood ay u leedahay oday 80 jir ah oo ka soo jeeda Bangladesh sida uu xogta ku daawacay mid ka mid ah qoyska ikraan tahliil oo xog lama filaan ah fashiliyay sidoo kale la wadaagay baraha internetka waxba yaana wardan ku daalanay ila daawada xogta la yaab kale ee uu dusiyay ninkani gabadheeni waa la guursaday ikraan tahliil waa la guursaday waa marwo nin muhaajir ah ayaa qabo ninka ikraan tahliil qabo magiis waxa la yiraahdaa tambiir bal tambiir wuxuu u dhashay wadanka Bangladesh ayuu u dhashay tambiir bal tambiir sifa u dhagaysta adeerkaynu u sheega ditoorka loo sheego gabadha ditoor tahliilow gabadhaadi haway bay degan tahay gaarsiin cid allaale ciddi wallaahi oo billaahi oo tallahi gaarsiiya Soomaaliyay gaarsiiya ditoorkiisu dhikar isku ridin sokor mar horaaba lagu riday ma maqaaliyab ka dambaysa billah calaykum gaarsiiya ditoor tahliil gabadhaadii maxaabiistii xabashada hawaay guryihii maxamed siyaad bar u dhisay dadkii maxaabiista ahaa xabashada guri baa loo dayactiray guri VIP baa loo dhisay halkaas yaani loogu dayactiray waxaana gabadhaadii guursaday nin tambiir la yiraahdo oo Bangladesh u dhashay muhaajir ah ayaa loo guuriyay tambiir baa la yiraahdaa wiilka sodoqad u tahay tambiir Bangladesh u dhashay Bangladesh ayuu u dhashay waa muhaajir gabadha waa la siiyay waxa la yiraahdaa abaheedi waa murtide gabadha waa la siiyay gabadhaadi 3 bilood uuray leedahay 3 bilood uurkeeda waa 3 bilood gabadhaadi uurkeeda waa 3 bilood gabadhaadi uurkeedii waa 3 bilood صدق باتاي إلهي قرب كاغي حقلو إلهي قرب كاغي حقلو قبل موفمنت تيجي دقدقاقيدي أي مرتي سفردي أي قشي ماشي أوركا لغو سو حقيجي تولد عربة واليرادا دبرها دقن أنا كاد دقن وتولد دبرها ليهي وحي كتالا بقى هوستا كتالا حتى دو باتاتا دختر كيوان شيغي كنا باري لكن مش شيغي دختر كاس ما شيء هذا حد وراعي دون كرباو وحاول لقيها إن نسجنه إن قراونا هاي إلى أسق وحي مش شيء حط ماشان ككينين هذا مد أنا يقول وحلي جوا يدينا أيوة أوفيسو مين ماشان برنامج شرقري دمانتني شرقري شقة هاتينا قبض قوانك يا جماعة محيي أرنتنا يجي مهمسن تنبا يجي مهمسن inaan sheego waa laga maarmaan waa gabadhaadi arabe waa la geeyay tuulada arabe waa la geeyay ku dhawaad bil bay soo joogtay
والله بين نقطي قبدني إلهي أنا عافيه والله بين نقطي والله سوعليي مكانكي أي دقنات بالغو سوعليي هاواي ما هاكولا قدبون شباب وذا هذا اللقل شباب وذا هذا اللقل قبل هذه الدون ماشي جوكتا مالك تكسو ويدو قربت قرن بلوا الصادة وح الله لي وحي أديك حالي حمانا ديار لا والله قبل هذا عافمات قفته أو مسكاني التمام بشاس بيكون نوشا هل كاسي جوكتا قبل هذا هواي قريه محابيستي هدو إلهي كورون يهي هدو إلهي كورون يهي حبشدي وقتي أساقها أيا قبضنا هذه برتاسا لغو هيا قبضنا هذه برتاسا لغو هيا ويعافمات قبطا سدح بلاد أور بيلاد هاي نين تنبير لنا تنبير و TAM BEE دبل آي عنده أروي تنبير باليادينكو هذا دو بانتا مجلس السودان ولا كيني دad baa loo diri abtirkiisa hadii loo baahan yahayna hadee waalidkii marka hore yaani muxuu habtaan keenay ayaa loo diri waa lagu keeni hadda reer Bangladesh aadi lahaydeen baa maqaali guad fadeexada haysata ayaa waxay tahay qaali gabadhan ayada ma dhalin sida gabadha ay sheegtay way ayada ma dhalin ayada gabadhan hooyadeedii iyo Dr. Tahliil waxa kala geeyay maamaqaali guhaad ba kala geysay ayada ayaa ciidan burburisay reerka ayada burburisay maamaqaalida burburisay maamaqaali guhaad ayaa burburisay reerkan Dr. Tahliil numberkayga soo siiya hayla soo hadlo hadduu raba hayla soo hadlo aniga hayla soo hadlo فهمت يعني أمود لو قدوا الماريسنين خنت إلهي بكاجعل جبنا وحي جوكتا ماشي لي هاواي بيت جوكتا هاواي ودول دبرأي رولا دقن وديان كيني وايا هاواي ماشي لي هذا صبلا المركي للنافواي واتغانا دكتور تهليل ونختار بعض هي وعلى الأمارتي دبرنا دتكي قبلنا وقوي مالا كالسوق meeshas inaad ku daaweynaysa oo aad ku dabiibaysay ayaa iska macquul ah inaad iga aqoon badan tahay baad u malaynaya gabadhaadi meeshasay joogtaa way nabad qabtaa arabow baa lagu soo baaray caafimaadkeeda taam waay HB-geedi waa la soo baroobay uurkeeda waa 3 bilood nin tambiir la yiraahdo oo Bangladesh baa guursaday raggaan markii koobdii loo geeyay gabadhan waraysi bay raaxada ugu qaadeen waa la argagixiyay gabadha waa la dhibaateeyay الأولتم وعلى السقف جرواي قبل اللي خارجي والدي هنوجك تلين تبدو هنوجك تلين قد داي إن مهاجر هلو جوري هلو قبتين مهاجرة مهاجرين ده ماشان روان كركعت وناق عن سنان لا نهاي ووقتين هاجر كويحي ناقوب مقالي جو ما يكون ولا كلا عراري هلو قبتو إنك مهاجر كاسك جوس إنك مهاجر كها وأب صومالي لبري أيا ماشو كون نوليهي gabadhaadii haawaay bay degan tahay guriyihii xabashada lagu hayay ay seexin jireen oo beeraha fali jiray guriyahaas guri ka mid ah ayaa gabadhaadii loo dayactiray halkaasay ku washay gabadha ma fahamti 3 bilood uuray leedahay magaalada arabow ayaa lagu soo baaray arabow qofkii yaqaan arabow kurtuni siriiri baale dad badan oo reer baale way yaqaanaan bartaas lagu soo baaray nabadeedii bay qabtaa way ku nooshahay ilmo Bangladesh bay ku dhalaysaa ilmo Bangladesh ay ku dhalee oo aad awoow u tahay qaali go'ad weybin kartay hooyaday muumina liirada dagoodii waaye hooyaday aabahay eedda kala geysay bay tiri eeddo ayaa isku dirtay eedda kala geysay reerkayda burburisay bay tiri eedda qaali go'ad hadda ma bilaabin dagaal وما دقال يهاند ودقال يهاند واي يا دقال يهان وما دايسو نبدي نولل إيو دولة صوماليات إيو قرن صوماليات إيو
daahayso waa maamo baratay waaye shacabka Soomaaliyeed oo marka baadidii Ikraan Tahliil oo muddo hal sano dhiman 10 maalmood ka dhiman hal sano 10 maalmood ka dhiman aad ku jahwareerteen meel walba qolo walba wax noo sheegtay marna loogu sheekay Kenya qaaday marna loogu sheekay Israa'iil baa qaaday marna loogu sheekay irka loogu soo dhacay marna loogu sheekay kolonijis baa khaarije marna loogu sheekay farmaajo qariye marna loogu sheekay Fahad Yaasiin war wixii oo dhan waa been war waxaas oo dhan waa been war gabadha ra'iisul wasaare Roble Mahad Salaad Sheekh Yuusuf Siyaad Indhaade qandaraaskeedii saddexdan qola qaadatay Daar es Salaam baa la dejiyay waa laga sii qaaday meeshay martay baabuurkii lagu qaaday labada gaari kulli waa wax yaani muxuu ahaa official u diyaarsan waay I don't know ma waxay rabeen gabadha inay qarax ku xiraan aniga ma garan karo mi fahamti gabadhii ala kulli xaalin cid alla cidii gabadhaas ay ka maqaneed baadideedii Hawaii bay taala Hawaii ayay taala baadideedii gabadhu gabadha baadida Hawaii bay taala mi faham nin Bangladesh baa qabo oo muhaajir ah tambiir baa la yiraahdaa waa la yaqaanaa 3 bilood uur bay leedahay mi fahamti gabadhii meesha joogtaa ilaahayna ka cabsada ilaahay loo toobad keeno gabadha meesha laga raadiyo ama khiyaar ha loo diro ama hadduu ilaahay ku roon yahay salaadiintii waxgaradkii ugaaska beesha gaaljeel meesha ha aado ummadii aad ku dambaawdeena apologize